Suldaan Sayid Cali Ibraahim oo ah suldaanka guud ee beesha Elay ahna afhayeenka Digili Mirifle ee deegaanada Puntland ayaa magaalada Muqdisho loogu sameeyay munaasabad soo dhaweyn ah taasi oo ay ka soo qayb galeen abwaano dhalinyaro iyo aqoon-yahano ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellada Hoose. Munaasabada soo dhaweynta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah aqoon-yahanadii iyo afmaalkii ka soo qayb galay. Hudaytiyus Ubshe iyo fulki marinta horsigi shulaashloodi iyo walaalka ka wiina ka dhawaaw hogolqubada soo hiinkama hanfadi hurlaange hadun iskitaal ihid walaalaha ka dhawaaw hooda huud yeelata hooda harfa uraamadaha kin hibeynay suldan hakka wiina ka dhawaaw سلطان هدواء وكلنا ألف مرة تلقى كهري إتكين جيل يوان إسجيل عدن كجيل يحكي دواء ياين هدواء الكور تنكلمات ما تلقى إسجيلي مركان كلها يعني هدايا ميكو جرتاي لم بدين دقيا dijidul kirugo doqortis li lam bameel isrugo marka xaaladaas iyo ka abtar sida walna ka sheegada sababta ma baweelay inuu qabala dalo ogon nagad aysi aw shawaay lan hogaamiyo wal usan sheegan waay eedan dhabtooda walaw kana shimbirbil noolada shimbirtil noolada oo jabiyeen oo hadan sheen biye dadka dhabka taasan jiyay tan kale sidaad ku darada may kumade may ba sababe walaagaas ogon nagadeena arlamay balare xob burburt may balan eedahay ulha iyo ulma ulmadii ololi sheegati ulhaykii adagaatay nagadi wala dhabku ku yarta saase suldan hadawaaw boqol mar ha ka dhawaayaan tan kala faraad magaaga markaad dheegni محضر لك أرني بدأ أنت مركار مننا بشاري أرني سلطان هدواو سلطان إن شاء الله ما يبقى فلانه تنشنات سداد أمة الصومالية هذا نسكيرتي قبل هذا بري ما يبقى رجع أن تنساسي كذلك إنه هذا نسكيرت ده كان تفضيان ما يبقى باهنين هجان سمت بحين ده أصلا عبماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيرت شرفت لي كلن كان كسوق يبقى شيء حفلة دان أنا قلت لك قلني سلطان كان سلطان سيد علي إبراهيم النبي متقول هذا بنتلان قارهن قول كبري أنا كسر دويني إني هولا شقاء ويمت مقدشو gobolka Banaadir ayaan ku soo dhaweynaynay oo aan ku maamuusayn in kastoo maamuuskiisa aan jeclayn intaan inay ka sii weynaato laakiin degdeg uu noogu yimid sida kadiska uu noogu yimid darteed ayaan waxa waaye xafladan soo dhaweynta ah heerkan la eg ay ku dhacday haddii aan sii ogaan lahayn oo ka sii fiicnaan lahayd waxa waaye runtii wax la yaaba ka dhici lahayd laakiin nasiib wanaag intaanu waxa waaye waxay nasiib u helay oo annagana degdegii intaas ayaan yani soo dhaweynteena ay noqotay haddii ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa mid ka weyn inaan insha allahu tacaala aan ku sagootin doono eediyada aan ka faraxsanay in macnaha hadhawaayna suldaan way ka sugaay kum iko jeer hadhawaaw eedan lakiin toonay dhammaan beelan adag dhalati reer Elay anuga ka toonayeen insha Allah taala hadayti balse insha Allah amur waqti sheewa galamaasa walobana xilileyn adin in macnaha xiliga hana deerta ya qoranayti marka may balana insha Allah hadhawaaw gobada kureet mabasin laqaway hadhawaayo ka Suldaan Sayid Cali Ibraahim oo ah suldaanka guud beelaha Digili Mirifle maamulka Puntland
may kala naah ka dhawow magaalada muqdisho caasimadii dalka dadka ka dhawaay may waa dadkii aad ku dhalatay dhalinyaradii aqoonyahankii waxgaradkii ka dhawaayayaan kulankun geeg may bana kulmay gobolka Banaadir ayna ka dhawaayanay Suldaan Siid Ali suldaanka guud digli mirfla gobolka Bari alxamdulillah oo maktabadan shal moqnayni hirow longobi heesa longobi oo maaratiyo aragtadiis iyo nato hadawaayo je salaam badan usuun hanin ku gudbi dadkii heer Bari oo salaantii wana deertii salaantii ko lagu dawni was may kala salaamkiin ku wadne dhalinyaro badan oo geeganta ilaahay nasiibana gadar aan ku koyna iyo waasi badan oo gobolka Banaadir ku sugan meelun ka deeri waayeen waaska salaantan oo deersi areen yoona adana salaanta si lagu doonto kan karajaan ilaahay subhanahu wa ta'ala insha Allah taas badin tan gabana salaanta may bua farxad wiina nigata hani daiti may bua warbadan ku sugaani kulunkan ku wiina dhilay laakiin may bua waqtiga ni ariirini wadanka aragayna may ba ka jira hoogo helo oo maarto xasaasiya doorasho ka jira saas dartiye in walwalba iyo dadiyina saasan ka sabti markuu mafadaan inni maartay xalfadan tan bilaarato wiina to rajeeni Suldaan Said Ali Ibrahim oo gunaanadka munaasabada ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed walaanyogay tolkay garabkay ogeeka ituseen in gobolka Banaadir iyo leey ilaahay san barakay dadnimada iyo geesinimada iyo walgorodka hidii dhaqan aan laatiin dhamaantiin way waa dalgubeeda atiin sida hadana nin sheegi Lancaster oo inta fadhi may haay may ka dhaladay meelu ka taliyo awoojay lan awoojay hobus hantalina burburku haay awoojay hataliy jiray sida una ogna oo ismaalan kasta taariikhda abwaanada iyo dadka may wahan ka shaqeeyaan taariikhda beelun may siin sheegayaan ama dhigahay taana in beelun yaata beel taajira oo hogaaminta iyo martigelinta iyo sharafta aan lahayti haybad iyo hidii dhaqan intaas ku baad may faday intii aan guud ahaan si mahadnaga gaar ahaan aan mahadnaga dadka qaaban qaabay xafladan soo dhaweynta runtii mafalana laakiin sida hadda isan qeyraysatin iyo sida isan may waa anis yaqaanteen may muuqata inay wali eelay awoodiis iyo aqliye iyo cududiis iyo walgaradshey wali iyo nooliin ilaahay sin sharafa ilaahay subhanahu wa ta'ala may weydiisadaan midnimo iyo walaalnimo iyo isku hoorka lama yaraa insha Allah intaas ka baad waleela rafadi walari abwaani meelka doodi suugan yahni meelka goobiyaan professor meelka doodaan ana madan may wahani ana doogani gabagabaylay mool badan ka daran fadaw laakiin may sii sheegay walaalyaal sharafta iyo haybada iyo gobnimada wal meelo iska yaalo qof kasta may wahan amaamadu han garabshay saarada uma walanti lan qariiba lan qada lan dhamada aan baahan waa sidii sinogtiin ma hada reebanka waliba haytay maal wala marti walan qade nagasna walan qariiba hadii uu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka obsana oo isjeelana oo isarusana aqabadooyinka hadda la sheekay oo dhan bay la ku baxaan abwaankan waliba ahay kuwii may dhalaasay kulun khayra dhaleewar madina niskooy oo raayidi tarmuuskana waqtan usnin shaagi boo dhiigaysan midna malaan laga wal mansuurta galayaan laga shiriis wal meel majeeyikor keeka inta hadama ay muuqdeen dhalinyaro oo jaamiciin oo yoodan jaamacadii dhamayaan oo shahaadadii haysadaan oo shaqalaan shaqada geeki lanka si fiishay leemil jeesida ay hoob la fiiri wala us hadiyaari aqoonta us leeyahay khibradiis boo la fiiri may wax la qaaday may roogo
wadanka burburi una dulmagna laakiin may ogaado waynay ogordo waynay laakiin intii xanuunsanyo buu ogaado meel la ka haayona ogaado xanuunji ogaado may muhiim ah intii daawadiis noo sabar daawadaana ka suwaani daawadaana wali leeyataa intii una maskantaan iyo aqlagaan iyo xoogan aan sheegna waliba wanaag ah oo adduunyo iyo aakhiro una kaliibanaano khayr oo sharban hayna muslim dib jayban hayna una antalan leeyo malik sheekay dhalinyaro badan oo walbarati oo balgamunta may baa la kulmay dhalinyaro ciidan oo dalcisiin wallahi roon lahay lanka jaamacada dhamaayna qabiila shaqo ka helahay lanka askariga dablaha eena may wahan qabiila dalacad ka helahay wal kaste adduunyada yaala qabiilo adina qabiila ata qabiilka intii lanko kala kiinkooy wal qabiilka ibra hamadun aragnay haasku tabakii ka darsan may wahan ka arkor suurtagal ma una madun may nindiidi inii una ogaana jiroodi ba kasnay san sheegahayna intii una daawadaan raadin may nindiidi talxumin nindiidi may kale eelan sheegay inii iyo jarta dhaqaala intii lahayn dhaqaalaha adduunka adoo laakiin Umar ah idin shaqeeyay haydo wala ka maarayaan oo iyo may waahan samafalka iyo kusoo biyayaan sanduuq meelo dhikay lambo may waa $1 iyo walka yar kiridi yalaha aruuriyahay dadka lan shaanahay haddii dadka gobolka Banaadir rooga oo beelan dhaladii iyo 2,000 qofood ama 3,000 man $1 iyo jimaadi aruursadan jimaadi billimay ka jarta 5 jimaad ama 4 jimaad ka jarta oo sanduuq la kalsooni la sameeyay dad islaam ilaahay ku obsadayaan oo mustaqbal leh howladan fadana oo gudiya iska dhafa la sameeyay ma malaysan inii akoonka oo sanduuqa beelan ka dhiyaw billi ama sanadkii meega dhaqaalan aruur oo badan suldaanka oo magaalada Muqdisho u jooga howlo shaqo ayaa waxa uu kulamo gaargaar ah la qaatay siyaasiyiinta digili mirifle ee ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo kala hadlay isku xirnaanta dadka reer Koonfur Galbeed iyo horumarinta deegaanadooda. Xuseen Cali Geesarlaadi News, Muqdisho.